adeer dawladnimadii waxa lagu wareejiyay koox yar asagoo uu wato ama xisbigiisii UDP ha ahaato ama dabjida loogu yeero ama tiim kale oo la midoobo daljir hal yiraahdo tiimkaas kaliya iyo shakhsiyaad ay wataan buu xukuumadii ku ururshay shacabkan Turkiya dhul gariirka ka dhacay miyaad u dhaaratay inaad u tacsiisid horta shacabkaagii baa la dhibaateenayaa dhibaataha bal ayada u tacsiiyay ra'iisul wasaare wax kala hagahaya oo dalkii kala hagahaya ma uusan keensan wuxuu keensaday nin asaga xogeyn horay uu ahaan jiray oo xisbigiisa ka tirsanaa oo meel iska fadhiya oo dalku meeshu maraya midna aan ka warqabin kulan wanaagsan daawadayaasha Natal Media meel kasto aad nagala socotaan ku soo dhawaada wareysigan xiisaha leh oo aynu la yeelanayno xildhibaan hore xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf Jibriil waxa uu kamid ahaa xildhibaanadii federaalka Soomaaliya waxa ku xasuusataan oo lagu yaqaanaa in uu aad u mucaaradsanaa maaragtay dawladii uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadda wali xilmahayo waxaan rabnaa inaan weydiino aragtidiisa waxyaabaha socda iyo siyaasadda guud ee dalka xilligan qaabka wax loo maareynayo ee dawladda uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud marka hore soo dhawow xildhibaan Cabdi Barre marka xiga waxa aad lagu arki jiray oo lagu daawan jiray xilligii Farmaajo oo aad mucaarad aad u kacsan ahayd hadda waa dintay xagee wax ku marayaan horta adiga bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad baad u mahadsantihiin sida aad rabtaan shacabka Soomaaliyeed xogta u gaarsiisaan Soomaaliya cilada haysata waxa weeye waxa la qarshaa xogaha dalka la qarshaa ama saaxiibtinimaha lagu qarsho ama mid lacag ku qaata lagu qarsho ama madaxda ka tirada maxay wax nooga sheegay adduunkana markaad xaqiiqda ka hadashid way arkaan dhaliisha way toosiyaan laakiin anigu ma toosino runtii dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kursina kama rabin hantina kama rabin waxaan ku mucaaradnimadu ma ahayn mucaarad wax burburinaysa waxay ahayd haday qaadanayaan mucaaradnimo wax toosinaysa oo tala wanaagsan keenaysa qaladaadkooda tilmaamaysa laakiin kameena faa'iideysan marka dadku waxay isaga qaateen inaan si kala mucaarad u ahay ama kursi ku haystay ama dana gaar ah ma ahayna waxa weeye war dalkan meel fog baa laga keenay wada qaloocan yaa la qaasiin dadka hal isu keeno digdigta iyo cagajuuleynta iyo kooxaysiga iyo gurubaysiga hal laga daayo tiibaan maanta taaganahay wixii shalay aan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka diiday oo aan waxan waa khalada cid kale kama yeeli doono aniguna siyaasadda mucaaradnimada iyo tala toosinta kuma degdego ilaa aan arko wax walba inay buuxsameen oo khaladaadkii buuxsamay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalintan ku bilaabay khaladaadka iyo mucaaradnimada iyo Soomaaliya maanta waa khatar baad ku jirtaan halkii sana 4 maalmood baa uga harsanay 2018 bishii labaad afarteedii oo sanadkii 4 maalmood uga harsan yihiin maantay dawladdaanu waxay maraysaa iyo xukuumadda markii la isku madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu marayaa muddo bishii 8 baa u socota runtii bisha 8 oo u socota iyo sanadkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u socotay ee wixii aan in Farmaajo ka diiday adeer wax ka xun baa dalka ka socda ama ha noqoto gurubaysiga khaaska ah oo kooxaysiga ha noqoto ama dalkii oo maaragtay dhibaato badan ka socoto maaragtay dadkii la rabay in la isu keeno aan islahayn hadii 15 May 2022 madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu noqon doonaa madaxweyne waaye araga oo 4 sano madaxweyne ahaa oo wixii ka halaabay iyo wixii u saxsay intaba og 5 sano banaanka uu joogay wixii dalkan ka dhacayo ummaddu dhibsatayna xoogaa loo ee waxa islahayn 9 sano waxa islaha way aragnimo ahaanayaa wuxuu ka gudbayaa kooxaysi iyo gurubaysi iyo nanjeclaysi iyo team yaraho isku urusho ka gudbayaa waxaanu islahayn dadkii Soomaaliyeed oo la kala irdheeyay oo madaxa la isu gashay iyo maamuladii inta la isu keeno maamulkii wax tabanaya iyo maamulkii maaragtay leexsan uu u yeerayo la fariisanayo taasaanu sugayn laakiin ma dhicin aniga runta qofkii ugu nacaya asagay u taala anigu dawladnimo aan rabaa ma dhicin waxay noqotay kuud ka guur oo qanjo u guur wax la yiraahdo xildhibaan Cabdi Barre qofka daawada maaragtay wareysigan hordhaca intaan yarta aad sheegtay ogna maaragtay meeshii ay wax taagnaayeen wuxuu is weydiin karaa
qaladaadka jira ee u muuqda muxuu yahay xildhibaan Cabdi Barre ayadoo la og yahay muddo sanad ka yar dawladda in shaqooyin badan ay bilowday qaarkoodna ayba ku guuleysatay shaqooyinkaasi la qabtay waxa isaga u muuqda maxay yihiin haddaysan ahayn inuu rabay in dawladda ay soo dhaweysato oo la shaqaaleeyo waa mahadsan tahay horta dawladda anugu waa dhex galaa wasiiradan saaxiib la ahay madaxweynahan is aragnayo saaxiibnahay mid maanta hadda inta aan u tagay ama aan lacag weydiistay ama aan jago weydiistay waad wareysan kartaan madaxweynaha weydii waa is aragnaa laakiin jagana ma weydiisan muxuu ahaa kursina ma weydiisan aniga waxyaabaha ii muuqday waxaan rabaa koow ummadana oo dhigo koow madaxweynaha xasan sheekh dalka asaga u dhaartay umuusan dhaaran tiim yar oo isku hareerayo umuusan dhaaran group gaar umuusan dhaaran wuxuu u dhaartay kan lowyacada jooga iyo kan saylac jooga iyo kan raas kaambooni jooga ummadaas midnimadooda iyo jiritaankooda inuu isku wado oo kan saaxiibka la ah iyo kan dhaliilahaya labadaba inuu saa isugu hayo asagaa laga rabaa dalka in la isku hayo u baahan yahay waad aragteen laascaano waxa ka socday gobol Soomaaliyeed oo dhibaato ka socday oo nimanka Soomaalidiidka oo yiri Soomaali ma rabno ka go'ayo bishii hore 2-3 bilood ku dhawaad calankii jumhuriyadda babinaya oo la warhana la ka soo gaaro oo madaxweynuhu inta media masaajidka ka istaagay yiri dawladda Soomaaliland waxaan leeyahay dadka la hadla oo dad idin la hadla soo dira shalay bisha 6deedii waan hadlay runtii warbixin xasaasiya aan dhiibay oo madaxweynaha aan u diray oo social media aan u qaybiyay oo aan leeyahay madaxweynuhu dadka adaa madaxweyne oo la hadal dalka waxa ka socda dhibaatada ku fiirsan caruurta iyo maatada la gumaadayo altileeriga BM-ka iyo hoobiyaha iyo taangiga laga dhaxay madaxweynaad u tahay 7 qof oo family waad ugu inay ku dhinteen madaxweyne turki nimankii hore waxay dhaqan u lahaayeen oo tiimkii hore qarax baa dhacaya madaxweynaha ama waa iska baxay ama wadan kale qarax ka dhacay u tacsiinayo shacabkiisu uma tacsiin jirin tiibaad ku bigareyseen baanay shacabkan Turkiya dhul gariirka ka dhacay miyaad u dhaaratay inaad u tacsiisin horta shacabkaagii baa la dhibaateenayaa dhibaataha bal ayada u tacsiiyay horta canaantaas kuloo aan diray waa u tacsiiyay laakiin hadalka uu hadlay waxay ahayd madaxweynuhu inuu yiraahdo maadaama dalka madaxweynaha asaga ka amar baxsho oo yiraahdo dadkaas lama taaban karo cidii Soomaaliland tilaabaan ka qaadaynaa xeer shacab iyo xeer Soomaaliland wuxuu ku hadlay macaan hadal odaytinimo oo siyaasiyiin buu ku hadlay madaxweynuhu uma baahna tan oo kale markii dadkiisa la garaaciyo waa koow mid labaad oo aan leeyahay war hal la saxo adeer dawladnimadii waxa lagu wareejiyay koox yar asagoo uu wato ama xisbigiisii UDP ha ahaato ama dabjid loogu yeero ama tiim kale la midoobo daljir hal la yiraahdo tiimkaas kaliya iyo shakhsiyaad ay wataan buu xukuumadii ku ururshay horta dhaliishaas waa leeyahay kaadi koow ra'iisul wasaare wax kala hagahaya oo dalkii kala hagahaya ma uusan keensan wuxuu keensaday nin asaga xogeyn hore uu ahaan jiray oo xisbigiisa ka tirsanaa oo meel iska fadhiya oo dalku meeshu maraya midna aan ka warqabin ilaa ra'iisul wasaarahan waa xukuumadii dalka asaga wada asaga dalka isu keenaya asaga shaqadii wada xukuumad iyo ra'iisul wasaare maantana waxaan qolba codeynaya ha ka sugina hadalkayga maalin dambaad ogaan doontaan xukuumad iyo ra'iisul wasaare dalkan siyaasadda meeshu maraya ka saaraya oo ummad isu keenaya oo hankii siyaasadda meel gaaraya midna ha ka sugina waxaan ku weydiinayaa miyaysan ku muuqan wax qabadka muddo sanad ka yar madaxweynuhu inuu u kala safray wadamo badan ha noqdeen kuwa xiriiradii maaragtay ama hoos ahaa dib maaragtay loo yagleelayay ama la soo celinayay ama ha noqdeen kuwa heshiisyo caalami ah la soo galayay matalaad maaragtay ay ahayd in caalamka lagu matalo Soomaaliya lagu matalay gudaha hadii ay noqoto sida aad arkaysid in al-shabaab dagaalkeedii iyo la dardargeliyay oo dawladdu ay abaabul fiican iyo ciidan iyo hubba samaysay miyaysan ku muuqan in dawladdu ay maamuladii jiray ee federaalka ah iyo wada shaqayntoodii xoojinayso ha noqoto koonfur galbeed iyo u diyaarinteedii maaragtay doorashooyinka hawlaha socda iyo muqdisho amnigeedii iyo waxaas miyaysan ku muuqan kaliya muxuu madaxweynaha laascaanood uga hadli waayay miya kula ah dawladnimadii oo wax laga qaban waayay horta laascaano inuu ka hadli waayo asaga dadku u dhaartay muhiimadda koowaad weeyaan ciyaar loo qaadan
dalka meel kasta oo dhibaato ka dhacdo oo xabadu ka dhacdo asagaa laga rabaa inuu xalliyo inuu go'aamo ka soo saaro inuu beesha caalamka la hadlo oo yiraahdo dadkaas waa la gumaadhayaa waa in beesha caalamku hay'adaha u dirtaa xuquuqul insaanka oo caawimo la gaarsiiyo asaga horta laga rabaa ma aha laascaan kaliya ma ahan meel kasta oo gobolka ka mid ah waa run midaan inta aad sheegtay waa run waa qirahayaa in madaxweynuhu uu wax badan saxay oo uu ku saxay in caalamkii nala ku diray oo nala ka jiheeyey oo dawladda hore nagu dirtay in wadamadii dariska qaarna jeebka la gashaday qaarna bannaanka la dhigay madaxweynuhu laba qodob aad baan ugu bogaadinayaa kow la dagaalanka cadowga al-shabaab inuu la dagaalamay oo weliba sidii la rabay ayna ahayn inuu la dagaalamay horta waa ku bogaadinaya sidana dawladdu markay dagaal galayso ma ahan iska dhaxyaac iyo iska orod waxay leedahay khibrad ciidan iyo istiraatiijiyad in lagu galo saas ay tahayna maba ayna galeena kacdoonkii shacabka laga faa'iideystay oo taa shaki ma lahayn qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed waxa waajib ku ah in lagu taageero nimankan khawaarijka oo shabaaba in lala dagaalamo qof walba waajib horta ku tahay waa madaxweynaha waajib ku tahay maaha wax qabad waa wuxuu ku dhaartay inuu dalkan wax ka qabto waxa ii soo haray arrimaha dibadda oo siyaasadda dibadda madaxweynuhu waa sharci ilaaliyihii waxaan u maleynayaa safarkan hadda uu Italiya madaxweynuhu ku aaday waa safarkii 12aad dal burburay oo soo kabanaya oo dhaqaalihiisa khatar ku jiraan madaxweynuhu ma ahayn intaasoo safar inuu galo madaxweynuhu inuu safaaradaha qaabilo dib u heshiisiintii maartay caalamka halka ka dhaxay ahayd safaradaas badan ninka qaabilsan oo u xil saaran waa wasiirka arrimaha dibadda dadkeenu waxay u arkaan kaliya madaxweyne inuu meel kasta aadayo madaxweyne meel kasta ma aadi karo haddii lagama maarmaan noqotay maxaa la sameynaya maya madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay aynagu ma sharci baynu ka hadlaynaa mise waxaan ka hadlaynaa madaxweynuhu waa iska socdaa madaxweynaha dalka asaga u baahan dalka dagaal baa madaxweynuhu gashay adduunkana waxaa ka reeban oo ka mamnuuc ah madaxweyne dagaal buu ku dhawaaqay waliba asagoo dibadda jiro dagaal ku dhawaaqa Turkiga joogo dagaal ku dhawaaqa madaxweyne hadduu dalka dagaal ku dhawaaqo xaalad dagaal uu ku dhawaaqo waxaa ka reeban in madaxweynuhu maalin safar ma ahan waa inuu dalka joogaa maxaa yeelay dalkii dagaal buu ku jiraa yaa dalka hogaaminaya asaga taliyihii ciidamada asaga ah sharci ilaaliyihii asaga ah madaxweynuhu ma dhoofi karo dibadna uma dhoofi karo inta dagaal ka socdo hawsha wax wada waa wasiirka arrimaha dibadda madaxweynuhu asaga isku ah madaxweyne ra'iisul wasaare taliye ciidan wasiirka arrimaha dibadda taariikhda ma dhicin madaxweyne markuu meel aadayo wafti aadayo ama shir caalami ka qayb galayo ama shir lagu casuumay ama asoo shir muhiim uu aadayo waa in ra'iisul wasaaruhu ka horeeya wasiirka arrimaha dibadda ka horeeya 3 maalmood ama 2 maalmood rakalu iska hormarinaya tiimkiisa ahaa buu iska hormarinaya hawshii wasiirka arrimaha dibadda qabanaya wasiirka arrimaha dibadda sidii maaragtay boorigaarka iyo kulu diyaaradda u saaray marka khaladaadkaas meesha ka muuqda khaladaadka sacdana hadaynu aynaan sixin de meel xun baynu ka dhacaynaa waa in khaladaadka la tilmaamaa Cabdi Barre waxaan ku weydiinayaa waxaad ka dhawaajisay in madaxweynuhu si kooxaysi ah uu u shaqeynayo oo maaragtay hadda maamulkiisii uu ku dhisan yahay adoo ka soo qaaday in qaar ka mid ah xisbigiisii ay u badan yihiin Soomaaliyana waxaa la raadinayaa in nidaamkii axsaabta dib loogu laabto oo xisbigii guuleystaa dabcan isaga maaragtay soo dhisi lahaa xukuumad haddii tan maaragtay soo hordhac ma ahan in oo madaxweynaha xisbigiisii nidaamkii axsaabta soo hordhac ma waan kaaga jawaabayaa eray su'aal hore ay weydiisay oo ahayd maamul goboleedii madaxweynuhu markii hore runtii wuxuu ku socday uu isu keenay in badan baana ka hadlay oo aan ku amaanay maamuladii la isku diray oo la isku madaxa la isu gashay inuu isu keenay oo mar 3 jeer 4 jeer halka la isku keenay in badanna waa ka hadlay taana waa ku mahadsanaa laakiin ka bacdi waxaa dhacday sharci dastuuriyana la isku qabtay maamuladii isku qabteen oo li war sharcigaanu dalka inoo ma fiicna sidaana sharcigaanu ku fiican yahay sharcigan horta aanu ka baaran degno aynu qaarkood la sugno dastuurkan marka afti laga qaaday u baahantay aynu ka sugno waxaynu hadda sameeyna aynu ku hesheena wuxuu noqonayaa baadil
madaxweynuhu waa ka boodiyay Puntland baa waxay tiri anagu wax berri ka maalin shacabka Soomaaliya ku soo noqon haya anagu berri meesha waa ka tagaynaa laakiin mustaqbalka dambe wax ku soo noqon haya ma saxiixayno Puntland waa tay diiday oo tiri joojisay sad afartii kale u yaray war Puntland shuqul kuma leeyahay saxiixa buu yiri sharcigaas muxuu ku noqon hayaa marka taasuna khaladkaasna madaxweynuhu waa galay oo waxay ahayd inta inaan la oran hebel maamul uma baahanay intiina ugu filan idinka amooje kuma shaqaysan majority dawladda kuma shaqayso inta Puntland waa su'aal kale waa u tagi doon yani su'aasha hore ku jirta aad weydiisay oo maamulada ahayd arrintan hadda aad weydiisay oo xisbiga ma noqon karto bilow ma noqon karto dalkan baarlamaanteeri weeye waa baarlamaanteeri qabiil lagu soo doortay waxa lagu socdaana waa 4.4 baa lagu socdaa xisbi hadda loo aqoonsan yahay dalka inuu ka jiro ama diiwaan gashan ama muxuu ahaa aftidooda laga qaaday ama xisbi maaragtay la kala saaray oo guddi doorasho tirakoob u saareen midna ma lahan marka madaxweynuhu kuma dhaqmi karo lamana oran karo waa bilow wax qabiil ku yimid oo 4.5 ku yimid in madaxweynuhu iyo tiimkiisii dawladdii ay iska buuxiyaan oo dadkii kale banaanka saaraan waa burbur dawladeed iyo dhibaatada maanta taagan madaxweynuhu taas khaladaadka uu galay oo ugu weyn bay ku xiran tahay oo aan leeyahay madaxweyne arinta hadda sax yaan barrita mucaaradnimo badan baa kugu soo socoto ana oge intii shaarka laga jeexjeexi lahaa oo in laga helaha waxaad maanta dalka ku maamulaysid ama xukuumad ha ahaato ama taliyaal ciidan ha ahaato waa wax ka baxsan power sharingkii lagu heshiiyey oo 4.5 ka baxsan baad ku dhaqmaysaa taana in la tilmaamo waa waajib waagii xisbiga inta la diyaarsho oo dalku xisbiga gaaraan oo aftidadweyne laga qaado oo dastuurkan la soxo oo la iclaamiyo guddiga doorashooyinku ay dhahaan intaasoo xisbiga dalka u tartamaysa de marka madaxweynaha yimaada awood buu u leeyahay walaalihii dawladda ha ka dhigo 10 walaalaha ha ka dhigo taas waa sida caalamku u shaqeeyo oo lagu shaqeeyo laakiin midaan waxa weeye waa wax qabiil lagu qaybsaday wixii qabiilkii lagu qaybsadayna koox gaar ah iyo group gaar ah de hadday qaataan de mucaaradnimo imaanaysa dhaliil ba imaanaysa dhaliishana maaha in la diido